gudoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhiiso Dhigo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka magaalada Beledweyne bisha barakeysan ee Ramadaan. Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhiiso Dhigo ayaa xusay fadliga bisha barakeysan iyo maalmaha xurmada badan wuxuuna la ugu bariyay inuu naxariis iyo ku marteysto dalkeena iyo dadkeena. Sidoo kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wato ayaa shacabka magaalada Beledweyne ku booriyay in ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta maadaama ay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruuf ku haysata gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Bismillahir Rahmanir Rahiim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ramadan Kareem Soomaali Maxamed man ay meesha joogtaan dal idib meesha joogtaan Ramadan Kareem ay leedahay Ramadan Kareem waxaan rabnaa insha Allah bi'ina Kareem Ilaahay Ramadaankiisa kale Ilaahay noo tanoo gaarsiiyo annaga nabad ah insha Allah waa soo dhaweynayna Ramadaanka dadka waqti fiican oo waqti sadaqada laga baxa ay tahay waqtigan waxaan leeyahay dadka masaakiinta ah oo wax haysan in loo gargaaro afarka la afuriyo ninkiis Ilaahay wax siiyay waqtigii maartay hadda ka hor ayaa maartay nabadii ayaa nima riwaayad magaasuuri habalow rasuulka Ilaahay wuxuu ahaa isheeg markii habal jihaadka ku dhintay markii habal ay saxabka ahaayeen ka dambeeyay waxa isheeg markii ayaa janno galay oo jannada ku hormaray labada isla galeen laakiin kii ugu dambeeyay jannada galay oo horgalay markaasuu yiri rasuulka Ilaahay ma soomin soo sanadka ma dambeeyay soo Ramadaan ma soomin waa cibaadaysta cibaado badan oo ka dansanaya ka dambeysay cibaado badan ama isticmaalo marka waa macquul oo misaas oo dhaay marka insha Allah Ramadaanka khayr badan ku jiro dadka Ilaahay waa siiyay dadka walaalahooda ah oo fuqarada waxba haysan waxa ay sheegeen wax siiyaan ayaa maartii soo dhaweeyna insha Allah inna sadaqatu lil fuqara wa masakin dadka masaakiinta iyo fuqarada iyo dadka maartii waxba aan haysan adoomada iyo waxaas ana wax la siiyo oo la soo dhaweeyo oo muxuu ahay la kaalmo insha Allah biyo ka saasa insha Allah aan maartii ku doorna insha Allah